filimka qaybtiisii koobaad la sii daayay ee loogu magac daray arday ee uu baahiyay TV-ga bile filimka isaga ah intaan la baahin qaybtiisii koobaad ee ku beegnay 27kii bishii afraad 2023 maalintii ka sii horeysay 26ka ahayd kulan aan kala qayb galnay qaar kamida culimada iyo bahda waxbarashadu iyo kulamo ka horeeyayba waxay xambaarsanaayeen kulamadaas inay culimadu uga naseexeeyaan walaalahaasi inay filimka ka daayaan mujtamaca Soomaaliyeed inay ku dhexbaahiyaan anu waxaan kamid ahaa intaan qaybta koobaad la soo daynin ka hor akhyaartii ka qayb gashay oo walaalahaas la fariistay oo uga naseexaynayay baan kamid ahaa saacada ayaan wada fadhinay aan uga naseexaynaynay filimkan inuu xambaarsan yahay dhaqan xumo didku ah diinta islaamka iyo mujtamaca Soomaaliyeed ee muslimka ah waxyaalo badan oo aan tusaalaynay oo aan tusaale ugu soo qaadanay oo aan niri maxaa ka wadaan inaad arintan iyada ah mujtamaca la wadaagtaan ma waxabaad ku duminaysaan mase wax wanaagaha in kaga muuqda su'aalaha noocaas aan weydiinay walaalaha waxa weeyaan xaqooda kama imaanin haba yaraatee wax ijaaba ah oo inay su'aalahaas ka jawaabaan ah kulankaasi wuxuu ku dhamaaday bilaa natiija isagoo wax natiija laga gaarin ayuu ku dhamaaday maxaa yeelay diinta islaamku waxayna amraysaa qofku hadduu qaldan yahay in loo naseexeeyo naseexadana marka hore laga bilaabo culimadu markii koobaadba waxay ku didaaleen inay la kulmaan oo u naseexeeyaan oo ilaahay dartii oo la hadlaan oo khatarta u sheegaan oo caaqiba xumada ay leedahay u sheegaan adduunyo aakhiraba inaan ardayga Soomaaliga ah ee dalkiisii wax ku bartay in maanta laga gudbiyo fariinta xun dhibaatada ay leedahay waxaan ka bilownay ayaga inaan la kulanno oo u naseexayna ayaan ka bilownay laakiin nasiib darro arinta iyada ah natiijo la'aan bay ku dhamaatay isla habeenkii dambaba qaybtii koobaad ayaan waxa weeyaan la soo daayay taasa marka waxay keentay mar kale culimadu inay si caam ah inay ugu naseexeeyaan الدين النصيحة waxaan ugu baaqaynaa walaalahaas baahinaya qaybaha soo socda ugu talagal inay baahiyaan ilaahay inay uga baqaan mujtamacan muslimka ah ee fariinta xun ay ka gudbinayaan haday tahay dal ahaan iyo diin ahaan iyo dadnimaba waliba ay ku dhacayso dhaawaca ugu weyn ardayga marka laga soo tago dadkii waxbarashadan waxa weeyaan soo hayay intaas oo soo barbaarinayay culimadii deegaankii diintii dadkii dalka iyo dadkaba ugu sareeyay maamul sariya mid hoosaba laga tarjumahayo in laga gudbinahayo inay wadanku uu yahay tacliimta xageeda meel daroogada lagu cuno meel gaangis ah meel waxa weeyaan qaawanaashay kala xishood la'aan ah ayadoon ognahay waxaas inaysan ka jirin madaarista iyo bahda waxbarashada way jiraan hal iyo laba iyo dad bani aadam qalad lagama waayo laakiin xaqiiqada dhabta ay waxay tahay waxal maanta la sii daayay oo hore loo sii daayay inaynan marnaba ka tarjumahayn dalka iyo diinta islaamka midna inaynan ka tarjumahayn ilaahay subhanahu wa ta'ala mujtamaceena fasaadka iyo fitanka Allah inooga badbaadiyo wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad